Bismillahirrahmanirrahiim. Halkani waa kanaalka Igloon Kidmeed. Maantay waxaynu ka hadlaynaa barnaamijka godobtii gumaysiga. Ku soo dhawaada barnaamijkaasi. kala qaybintii qowmiyadda Soomaalida ka sokow Ingiriisku wuxuu bilaqaysaday kaabiyaashii dhaqaalaha ee koonfurta Soomaaliya. Talyaanigu ka sameeyay waxaa ka mid ahaa rayl dhawaabihii taarin ee isku xidhi jiray Muqdisho ilaa iyo Jowhar, warshadii cusbada, haafuun, motooradii waraabinta beeraha iyo wixii la mid ah. Waxaa loo raray oo lagu rakibay mahmiyadda bariga Afrika Ingiriisku ku lahaan jiray. Dagaalkii dhexmaray gumaystaha Ingiriiska iyo daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan, Ingiriisku uu ogaaday in fardaha Soomaalida ay ku fiican yihiin faltanka dagaalka, isla markaana geela Soomaalidu awood u leeyahay in uu ku noolaado cimilada kulul iyo biyo la'aanta. Sidaas awgeed, maamulkii militariga Ingiriisku BMA ee Soomaalida gacanta ku hayay 1942 ilaa iyo 50kii wuxuu isugu dayay inuu Soomaaliya ka dabar gooyo fardaha iyo geela. Waxaa dalka laga raray tiro badan geel iyo fardo. Howlahaas oo markiiba laga buuxiyay waxaa loo dhoofiyay Australia iyo wadamo kale. Arrinta ugu daran ee Soomaalidu weligeed aysan xilmaami doonin ayaa ah intii ay socotay dooda ku saabsan waxa laga yeelayo wadamadii Talyaanigu horay u gumaysan jiray ee Soomaaliya ka mid ahayd, ayaa Ingiriisku gobolka Soomaali galbeed ku wareejiyay Itoobiya 1948kii. Waxaa xusid mudan in hal sano kadib aas-aaskii ururkii Israel ku beegan sanadkii 1944kii in Ingiriisku heshiis la galay Itoobiya. Heshiiskaas oo Habashada u ogolaanaya inay kheyraadka dabiiciga ee dhulka Soomaali galbeed ka baari karto lana soo bixi karto. Sidoo kale Itoobiya waxay heshiis la sii gashay shirkadda Mareykanka ee la yiraahdo Sinclair Company. Heshiiskaas oo shirkadda u ogolaanaya inay muddo 50 sano dhulka Soomaali galbeed shidaalka la soo bixi karto. 8 sano ee maamulka militariga Ingiriiska BMB ka jiray koonfurta Soomaaliya, Talyaanigu wuxuu ku guuleystay inuu bulshada koonfurta ka dhex abuuro kaadir taabacsan afkaarta iyo maamulka Roomi. Taasina waxay dhalisay in rag reer koonfur ah ay u ololeeyaan mahmiyadda Talyaaniga. Ingiriiska oo markiisa horeba Soomaalidu ku waday hagandaro iyo qiyaamo, wuxuu ka carooday doorashadii Talyaaniga, kadibna wuxuu bilaabay in Soomaaliya dib u sii kala qaybiyo. Ingiriisku qowmiyadda Soomaalida wuxuu ka dhigtay kaar siyaasadeed lagu hirgeliyo danaha iyo qorshaha mustaqbalka fog, wuxuuna Soomaali kala galay eed baaxad weyn.